qofka xoolo lagu aamino amaanaha loogu dhiibto amaba se shaqaale ah oo qof la aaminay amaanadana xaqeedu waa in la ilaaliyo sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala yiri inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha macnaheedu waxa weeyaan waa inaad wixii lagu amaanaystay aad ilaaliso ilaa qofkii kugu amaanaystay aad ku wareejinayso rasuulkuna alayhi salatu wasalaam wuxuu yiri addi al-amanata ila man itamanaka wala takhun man khanaka amaanada cidii kugu aamintay u gud ana iyadoo dhameystiran cidda ka khiyaamaysan khiyaamadu waa sifo xun ee adigu khiyaameyn marka kuma banaana xoolo cid kale ay leedahay oo amaana hayaad ka tahay inaad iska isticmaasho iyadoo cidii lahayd aanad fasax uga haysan arinta noocaasna waxaad kaga baxaysaa aaminnimadii waxaanad soo bedelaysaa inaad noqoto qof khaa'ina oo aaminnimadaadii bay arinta noocaasi meesha ka saaraysaa marka wax banaan ma aha wixii hore kaaga dhacayna in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga toobad keento wixii xoolo kugu maqan cidii lahayd waa inaad u guddo weeye si aad arinta uga badbaado hadii ay jirto baahi keensanaysa xoolahaad hayso inaad wax kamida si isticmaasho hadhowna aad mushaharka ka bixiso waa inaad qofka xoolaha leh fasaxaad ka qaadato wallahu a'lam